dunidan tartan baa lagu jiraa waxaana loo tartamayaa guul. qof walba waxa uu cararaya siduu u guuleysan lahaa, qof waliba waxa uu cararaya siduu mustaqbalkiisa meel u saari lahaa. adduunka lanooma keenin ciyaar, lanoomana keenin inaan iska joogno uun, ee hadaf iyo ujeedda lanoo abuuray. wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. jin iyo insiba umaan abuurin inay aniga ay caabudaan mooye, ayuu ilaahay qur-aanka noogu sheegay. tartan baan ku jirnaa, adduunyan loo ordayaa. qof waliba higsi iyo himilo dheer ayuu leeyahay oo maanta ku fikiraya. waa caadi, shaqayso, dadaal, dunideenna wax qabso, balse laakiin inaan aakhiro hilmaanno maaha. ogow guusha adduunyadani waa mid dhammaanaysa, laakiin qofka aakhiro guulaystaa waa qof aani guushaasi ka dhammaanayn. oo ogow jannada aad raadinayso, jannada qof waliba doonaya uu rabo, ka ugu yar ee ugu darajada hooseeya ayaa lagu abaalmarinaya dunidan 10 laabkeed. bal haddaba dunidan oo ilaahay ku tilmaamay inay agtiisa kala qiimo yar tahay kaneeca garabkeed, maxaad iskugu xijin iyadoo oo jannada ka ugu yar la siinayo adduunyadan 10 laabkeed? fadlan aan u fikirno sida saxda ah, aanan u fikirno sidaan u mari lahayn dariiqa saxda ah ilaahay noo abuuray. waa laga tagaya dunidan, noloshanina waa dhammaanaysaa.